waa mid ka mid ah qaraxyada ugu khasaaraha badnaa ee dalkan ka dhaca sida aragteen daawadayaal dadka ugu badan ee dhibaatada gaadhay waa dad shacab ah oo halkan ka raacay gaadiidka u kala goosha Muqdisho iyo Afgooye dadka geeriyooda waxa kamid ah arday sidoo kale dad waxaan loo xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen laba nin oo saraakiisha Turkiga ee dhisaysa wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye dad goobjoogayaal awareysane dhimashada wax ku qiyaasin 70 meeshan wax balaaran baa ka dhacay waxa weeye waa cuqubadaas ayaa dhacday waxaas aad arkaysaan ummadana waxa weeye lisma yaqaan waxa waa meesha waa dad xitaa wax iska daay ciyaal baa ku dhamaaday shaqo nimanka ardada jaamiciinta waa ku jira halkaan ku dhamaaday meeshan way ku baaba'een waxaan arkay 12 qof oo bidaysa bal wax kale saas u bidayay qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay ilbahoodii halkaan waxa ku dhintay madaxdii meeshaan xukuntay alyoom iyo ninka la yiraahdo Saylac iyo meeshaan ku jiraan hoos hadda ku jiraan waa rag baabacay oo booliska gaariga qarxay waan arkay wakaalkaya halka wata laga qaatay ya Turkiga halkaas u galay waa meeshaas meeshuu galay Turkigu laba nin bay ahaayeen gaariga waxay noociisa muxuu sheegtaa ma sheegi karo waxaas ma yiri ma aan lahayn anoo dhan xitaa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda isbiya ku soo maartay habaaskii iyo wixii oo dhan baan qariyay markaan soo nimidna meeshaan ardayda markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyay miirkii oo dhan baa iga tagay iyo maskaxdii meeshaan cuquba ka dhacday aabo waa kaab wax la yaab laha dhacay waxa weeye dadku 70 kama yara waa dadka dhintay dhaawac wuxuu ahaa 4 maanta masiibo ka dhacday meeshaan aniga dhinacan ceelashaan ka imid markaan meesha ku soo dhawaa kaas control ku soo dhawaa ayaa gaari oo dayna anaan ku qiyaasay u maleynaa inuu yahay soo ordayaan u jeeday gaari kala lagu dhiftay marka oo Turkida leedahay proof oo gadaal ka furan marka gaari markuu lagu dhiftay gaariga uu duulay wuxuu ku dhacay darbigaas adii markii dambe waxaan ka soo bixinay hoos laba Turki oo meedkooda iyo shaqaalihii kor saarna meesha ku dambeeyeen moodo kuwa staff kor saarna banaanka saarna laakiin moodo meesha ku dambeeyeen ilaa hadda wax ma sheegi karo nolol iyo geeri kuma hayna laakiin ummad badan ku baabaaday arday jaamacadeedna laba bas oo caasimeen bas ayagana waa ku baabeen waxba kama badbaadin waqtooda meeshaas ay dhawaan yihiin wiilal oo sa shaqeeyno anna shaqada iska leeymaan xataa qaar ka dhintay oo soo socon horteeda soo socdeen sugaareen saaran laakiin ay soo hormareen marka meesha masiibo ka dhacday in Allah wayna gaadhay dadka dhintay wallahi dadka dhintay koow ilaa ma dhihi karo waa dad aadi horta dadka 70 ma ka yar sababtu waxay tahay meesha busy ah dadkii inta ka imaaday dadkii jaamacad u socday waqti waxay ahayd oo dadna shaqo u socday dadna waxbarasho u socday dadna meelaha kala duwan kala socday dad masaakiin tuugsan xataa saddex ku jirtay oo iyagana wadooyin fadhiyo makrofoonada ku qaylinay adiga meeshan looma wax kala harin ma leh qaraxan kiiso wax yar oo ka damka yariya qarax yar ma aha sababtu waxay tahay annaga meeshan annaga nafteena gadaal u dhacnay waa wiligay ma arkin qaraxan oo kale way dhiman yahay waxa u jirto marka adiga ani wallahi hadii qiyaas waxa u jiray 180 talaabo oo kale 100 oo kale u jiray meesha dhuxushaasaan soo maray markaas ku soo baxday markaas markii dhibaatada dhacday ha markii waa dadka badbaadana kamid ahaaba waxyaabo ku yaab badnaa waxay ugu yaab badnaa waxay ahayd gabar oo maxay ahayd oo jaamacadeedii iyo ID kaarkeedii mobile iPhone iyo adduunyadeeda wadato oo maskaxdeeda dhan wada daadatay aan u jeeday iyo asagana oday kale dadka horta si xun silacay u dhinteen dad la koobi kar ma aha meesha mashaakil ka dhacday dhibaato ilaahay ummadda ha badbaadiyo wixii dhiman wixii kalena kulay wax kale oo dhiman ma jiraan ka dhibaatadaas dhacday ganacsiga maqaaxiyaashii iyo wixii naagihii meesha qaya joogay beesha shaah lagu cabaayo wixii dhan kuma haystaan hatta qaraxan waxa uu yaabiyay qofka dhan uu qaadaba gabigiisaba uu duulina xoogiisa macna hadda gaariga inta laga soo duulay darbigaas lagu dhufto marka waa qarax ajiib ah ma arka aniga dhanka ku yimid gaariga wallahi wadooyinka ka yimid laakiin inuu gaari yar ma ahayn gaari dayna ku qiyaasay adiga marka gaari kale intuu taagnaa kan lagu dhufanayo maal staafkoodii wadada ku socdeen marka inay baxaan ay labeen biyo ay caabayeen way taagneen waa lagu dulkeen marka saas way